taliyaha ciidamada booliska koonfur galbeed Soomaaliya Jarnaal Mahad Cabdiraxmaan Aadan ayaa digniin adag u diray ergadii soo dooratay mudanayaasha baarlamaanka dawladda Soomaaliya. digniintaas oo ah inaysan u tagi karin dagaalamayaasha al-shabaab maadaama dhawaan al-shabaab ay u yeereen ergadii soo dooratay xildhibaanada dawladda Soomaaliya. taliyaha ciidamada booliska ayaa ugu goondiyay ergada inaysan ku soo laaban saddexdan gobol ee koonfur galbeed qofkii u taga dagaalamayaasha al-shabaab ee adeeca amarkooda. awood maayo liciif waay qaraxaas waxa waay waa joognaa waay qaraxaas waa joognaa waay runtaan idiin sheegayna shabaab waa burburay waxay haayaan ma jirto waa idin cafinayna muxuu cafinaa saab dambiil ah dadkii laay ummadii laay Soomaali laay gacan ku dhiigle aakhiri adduun midna aanan sugaynin inuu naxariis helo macna kiiba i cafinay burfulaayaan aaday bay dhaban ku soo noqona South Western jooga meel kasta oo saddexdan gobol uu ka tago ma deynay annagana dad baan nahay waa tashanayna go'aan ay gaareen ayaga go'aan bay gaareen inay shacabka u yeeraan maalin u yeeraan ergadi maalin gaadiidka u yeeraan maalin gabdhaha u yeeraan maalin malaaqyada u yeeraan maalin bay wax u yeeraan intaba dhaqaale ku salaysanta macna intaba dhaqaalo yay ku salaysanta taas waa midaas dad diiday jira marka oo mawliidii diiday ergooyinkii yaa jira ilaahay idankii waxa la iiga sheegay ma garanaysa xogaa in la waa annaga tilaabo ka qaadayna inay leeyihiin annagana ergada agteedan ku sugaynaa waa noo ballan ergada waxa ogaanaysaan baaqan u diraayo waxa waay nin walba niyadaada daji qorigaaga diyaarso annagana waa ku garab taaganahay xaaraantaas haddaan ilaahay ku diidin inaan ka difaacno adigana iska difaacdid ku tasho taas ku talagal nin walba qorigaaga diyaarso. hadalkan ka soo yeeray taliska ciidamada booliska koonfur galbeed Soomaaliya ayaa imaanaya ayadoo dhawaan al-shabaab bayaan ay soo saareen ugu yeereen dhammaan ergadii soo dooratay xildhibaanada dawladda Soomaaliya inay iska soo diiwaangeliyaan deegaanada hadda ay maamulaan al-shabaab.